gudida guul iyo gobonimo cuqaasha waxgaradka aqoon-yahanka ka soo jeeda degmooyinka oo dhaqoshay balidhiig xagal nasiye ayaa shir jiraayid ay ku qabteen hotel Tawakkal ee magaalada Burco waxay hambalyo iyo bogaadin u direen madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici ee ku guuleystay doorashooyinkii madaxtooyada ee dalka ka dhacay 13 bisha November sidoo kalena waxay gudidani ay bogaadiyeen madaxweynihii hore Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo kaalintii muuqatay uu ka qaatay horumarka dalka halkan waxaan uga hambalyeynaa madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Saylici ilaahay waxaan u weydiinaynaa in ilaahay xilka uu qabtay ilaahay inuu ku guuleeyo waxaan halkan ka hambalyeynaa madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha ku-xigeenka Saylici hambalyaan u direynaa waana u ducaynaynaa waxaanu halkan ka tahdiyeenaynaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi ku-xigeenka Saylici halkan hambalyo yaan ka soo direynaa waxaan u hambalyeynaynaa madaxweynaha Muuse Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici xilka ay qabteen waa ugu ducaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku garab galo waxaan halkan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha cusub Muuse Biixi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici oo xilkii ku guuleystay ilaahayna ku guuleeyay dadweynuhuna la qabtay waxaanu ugu mahadnaqaynaa aan leenahay ilaahay ha idinku guuleeyo halkan waxaan hambalyo iyo salaan uga dirnaa madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee xilka ku guuleystay mudane Muuse Biixi Cabdi igoo ah Mujaahid Axmed Waraab Cadde waxaan ka hambalyeynayaa Mujaahid madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Saylici hambalyo madaxweynaha 5 sano ilaahay ha ku simo hambalyaanu adiga iyo ku-xigeenkaagaba waan hambalyeynaa aad iyo aad baanu idin hambalyeynaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici waxaanu leenahay waxaanu idin soo direynaa salaan qiimo leh waxaan hambalyad miisaan iyo mugle u soo gudbinaynaa xukuumadda cusub waxaanu halkan ka soo gudbinaynaa salaan aan u soo gudbinayno madaxweynaha mustaqbalka Muuse Biixi Cabdi guud ahaan hambalyo waxaan u dirayaa shacbiga Soomaaliland sidoo u dhan yahay ee dhammaan u tafaxaytay inuu kala saaro xusbiyada una codeeyo hambalyo u dirayaa madaxweynaha cusub ee la doortay mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo aan ugu ducaynayo in ilaahay xilka uu fududeeyo hambalyo madaxweynaha cusub mudane Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici hambalyo waxaanu idin leenahay ilaahay xilka qabateen idinku garab galo aad ayaan u hambalyeynayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Khaliil Barrawran TV-ga qaranka Soomaaliland magaalada Burco.